السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وين السلام يا غيار تشرفت له مول بدون ذيك جوجتان waxaan doonayay faalay yaroo kooban aan ka bixiyo saddexdaas nin hadda ilaa iyo hadda xafiisyadii weli jooga dalalka Eritrea Soomaaliya iyo Ethiopia kaliya taliye aan ka bilaabo Eritrea Afwerki ayaa wuxuu ahay laacibka siyaasadda nimankan ku hagayay isbahaysi samaysteen isbahaysigaas wuxuu salka ku hayay inay xukunka xoog ku haystaan ama ay xukunka maaragtay ay iska kaashadaan oo ay xagga militariga iyo xagga siyaasadda iyo dhinac walba ay yani iska kaabaan laakiin Afwerki sida soo baxday ama muuqata waxa cadeed inuu shirqoolayay labada nin oo markaa siyaasadda ku cusbaa inuu shirqool adag u dhigay oo shirqoolkaasuna uu ahaa in uu maaragtay shirqoolkaasuna uu ahay in uu doonayay in labadaba uu ka taqaluso Ethiopiana uu burburiyo Soomaaliyana wixii markaas inkastoo soo daris lahayn haddana sida uu maaragtay u waqi karo inuu u wiiqo madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo xilku ka dhamaaday Farmaajo wuxuu ku qalqaalshay ciidamo tiro badan inuu soo diro si qarsoodi u soo diro oo nidaamka aan waafaqsanayn dawliga ah inuu u soo diro ciidamadaasna uu tababari doono ka bacdina ciidamo kale lagu soo dari doono ka bacdina saas Soomaaliya uu ku joogi doono ama ku xoog uu haysan doono ayuu ka dhaadhiciyay Abiy Ahmed wuxuu ka dhaadhiciyay nimankaas TPLF ta inay yihiin caqabada hortaagan xukunkiisa inuu cagta mariyo isku soo wada duube Ethiopia ayaa laga bilaabay Ethiopia waa la burburiyay TPLF-kii buuraha ayay galeen ciidamo badan oo Afwerki iyo ciidamadii uu talagalay Farmaajo xukun aad ku haysanaysaa ama isbahaysigiisa lagu dhisay ciidamadaas ayuu geliyay meeshku wixii ku baabiyay ugu baabi'i karo wuxuu ka argoostay dib iyo uga baxay maantana TPLF waxay ku soo noqotay meesheedii iyadoo intii ka awood badan kumanaan kun oo maxaabiis ayay soo bandhigeen waxay kale soo bandhigeen awoodoodii military bulshadii caalamka dhan ay TPLF taageero ka heshay Afwerkina dib ayuu uga baxay waa ka gurtay dhinacaas ayayna ka soo galeen oo dhinaca maaragtay Eritrea ayay ka soo yaaceen buurihii ku teedsanaay saasay ayayna ku hanteen TPLF dhulkoodii Farmaajo iyo Abiy Ahmedna afka ayuu dhulka u daray marka waxaa la dhihi karaa Afwerki waa halis yani kaliya taliye aad u arxan daran oo aan marna cafin godobka galay saas aawadeedna uu burburiyay maanta Ethiopia Soomaaliyana ay miiska u saaran tahay aad iyo aad aan salaamayaa dhamaantiin khiyaarta sharafta leh magacaygu waa Garan Cabdullah